magacaygu waa Maxamed Cali Xaashi waxaan ahay wariye ka tirsan warbaahinta Somaliland ee madaxa bannaan ee Hargeysa ka howlgasha Hargeysaan deganahay waxaan halkan ka sheegayaa oo ka cadeynayaa maalinta bariya waxa jirta in loo dareeri doono hadii Ilaahay na gaarsiiyo doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo dadku ay kala dooranayaan musharaxiin tiro badan anugu Maxamed ahaan waxa ii go'aan ah oo waqti hore aan go'aansaday markii la qaadanayay kaararka inuu codeeyo Barkhad Jaamac Batuun oo ah musharaxa golaha wakiilada ee gaarka ah ka duwan musharaxiinta kale taas oo gobolka Maroodijeex oo musharax ka yahay bulshada kala duwan ee gobolka Maroodijeex inta aqoonta wadata inta caqliga saliimka leh inta sidayda qabyaalad ka cararka qabyaalada diidan waxaan dhamaantood ka codsanayaa in maalinta bariya musharaxa cagafta Barkhad Jaamac Batuun ay u codeeyaan taas anigu musharaxiinta deegaan ahaan iyo hayb ahaan aan isugu dhownahay Hargeysa iyo Togdheer buu ka sharaxay waxaan diiday in qabiilnimo iyo qabyaalad aan ku doorto taasaana keentay in Barkhad Jaamac Batuun u codeeyo insha Allah haddaan noolaado 24 saacadood ee soo socda dadka kala duwan micna ma samayso kursi oo in adeerka ka kacay inaynu haddana in adeerkeen kala ku soo celino waxaan doonaynaa si Somaliland muraayadeeda iyo quruxdeeda dimuqraadiyadeed iyo qabyaalad la'aanteeda bal inay unaynu qabyaalada aynu ka gudubno oo Somaliland bal ay quruxsanaato platformka dalku leeyahay in bal aynu Barkhad soo saarno oo in Barkhad ku tutunsano himilooyinka fog iyo riyooyinka aan dhimanin aniga khaasatan qulubtayda qalbigayga ku jira waxa weeyaan inaan helo Somaliland qabyaalad aan ugu codeynahayn oo bilaa qabyaalada oo min sanaag min sool ilaa iyo galbeed qofku musharaxa uu dooranayo hadduu madaxweyne iyo hadduu golayaal yahayba uu bilaa qabyaalad ku doorto aniga taas ah himiladayda si aynu taa u gaadhno rajada koobaad ee aniga iyo dad badan oo aan isku fikirnahay aaminsan waxa weeye inay socon karto hirgeli karto haddaynu maanta Barkhad awoodda saarno oo Barkhad Jaamac Batuun aynu soo saarno aad iyo aad baan idin salaamayaa dad badan baan ogahay oo qabyaaladiida dad badan oo dhalinyaro baan ogahay oo odayaashii iyo reerkooda ay xildhibaano soo xuleen oo aan garanayn oo aan ku qanacsanayn oo aan fahansanayn oo aan doonayn waxaan leeyahay dad badan oo si hoosaan u wada hadalay baa jira oo rag iyo dumar bale waxaan leeyahay anigu siyaasi ma yihi laakiin fikir ahaan Somaliland quruxdeeda si aan u helo waa in Barkhad Jaamac Batuun aan dooranaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa maalinta bariya waa inuu noqdaa insha Allah qofka ugu sareeya kuraasta golaha wakiilada codka ugu sareeya ku soo baxaya Ilaahay baan ka rajaynayaa bulshadayda baaqa u diraya waan ku calooladahay waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo inta qabyaalad ku codeyn lahayd aakhirada lagu weydiinayo waliba yaa ninka u codeey Barkhad u codeey ceeb ay idinku tahay Somaliland dhexdeeda waliba kuwii sheeganayay aan ka midka ahay laabta garaacayda gobolada dhexe iyo beelaha dhaxaan unaay ugu awood badan leh kuwa yiraahda oo caasimadii Barkhad Jaamac Batuun ka sharaxay hadduu idinku dhaco oo halka uu ninkaas soo bixi waayo gobonnimada sheeganaysan waxba kama jiraan Somaliland badbaadiya gobonnimada ku sheeganaysan badbaadiya ajiga sheeganaysan badbaadiya soo na saara Barkhad Jaamac Batuun